Cameroonian by nationality. waxaan madax ka ahay shirkad si gaar loo leeyahay oo halkan Dubai ku taala waxaana la dhaqmaa oo aan aad u dhaxkalaa muslimiinta waxayna ii sheegeen waxyaabo badan oo islaamka ku saabsan intaas kadib islaamkii way jeclaysiiyeen marka shalay ayaan halkan imid waxaana go'aansaday inaanan islaamka aqbalin ilaa inta su'aalahan la iga jawaabayo su'aalahaas marka la iga jawaabo kadib ayaan soo bandhigi doonaa go'aanka ugu dambeeya ee aan islaamka ka qaadanayo iyo aragtida aan islaamka ka qababa and my view of Islam. So, my question is this. marka su'aashaydu waxa weeye haddii aad gaari cusub ka soo iibsato shirkad kadib gaarigii aad wadada ku soo kaxayso gaarigii marka adoo wadada wada ayaad waxaad ogaatay in gaarigan wax ka maqan yihiin tusaale ahaan waxaad ogaatay in hoonka gaarigu uu maqan yahay markaad aragto markaa gaari bilaa hoona maskaxdaada markaa waxbaad iska weydiinaysaa waxaad is odhanaysaa markaa talow gaarigan hoonkii ma laga iloobay oo shirkaddii soo samaynaysay waa ka ilowday miya mise gaariga waxbaa ku dhacay oo saa darteed buu hoonkii u waayey haddaba tusaalahan aan ku soo qaatay waxaan rabaa su'aal la xidhiidha oo qaabkan oo kale u dhacaysa inaan ku weydiiyo haddaba haddii aan ka soo qaadno adduunkan aadka u weyn waxa abuuray ilaahay allahaasoo ah allaha ugu awood badan uguna caqliga badan haddaba adduunkii uu allaha noocaasi abuuray aynu maanta ka raadinaynaa nabad dadka oo dhanna waxay isweydiinayaan nabadii halkee tagtay bay iswada weydiinayaan sidaa darteed adduunkan uu abuuray allihii ugu caqliga badnaa ee aynu inaguna ka raadinayno nabadda ma waxay ka dhigan tahayba ilaahay adduunka nabad muuna ugu talagelin mise nabadda lafteeda uu ilaahay adduunkan uu ka iloobay walaalkeen wuxuuna weydiiyey su'aal wanaagsan tusaalena wuu ina siiyey oo ah haddii aad gaari cusub soo iibsato oo aad ka weydo hoonkii waxaad isweydiinaysaa gaarigan maxaa ka maqan wuxuu yidhi marka haddaan arrinkaa uga qiyaas qaadanno maanta adduunka wax nabad ihi kama jirto qof walbaana wuxuu raadinayaa nabad markaa ilaahay nabadda miyuusan abuurin mise wuu abuuraye ilaahay bini aadamka nabad lama doonayo miya walaal markaa su'aal wanaagsan ayaad weydiisay laakiin tusaale kale aan ku siinayaa oo ku saabsan isla gaarigaa ma ogtahay gaarigan cusub ee BMW-ga modelkiisii u dambeeyey amaba gaadhin kale Mercedes-ka waxaan rabaa inaan kaaga sheego sheeko xaqiiq ah markaa mid saaxiibada kamid ah ayaa safar galay markaa saaxiibkii ayuu furay gaariga u dhiibay wuxuu ku yidhi orodoo gaariga ii soo baarkin kare saaxiibkii markii uu gaariga soo galay wuxuu waayey meeshii uu furaha ka gelin lahaa ayuu waayey markaa saaxiibkaa soo wacay wuxuu ku yidhi gaariga halkeen furaha ka geliyaa markaas wuu ku qoslay waayo gaarigan cusubi ee modelka cusubihi ma laha meel fure laga geliyo maadaama isticmaalayo technology ugu dambeysay oo haddii furaha gaariga loo soo dhaweeyo automatic way isku furaysaa batonka markaa taabatana wuu istaarmayaaba waayo waa teknolojiyadii ugu dambeysay marka haddii aadan ka warhaynin waxaan meesha ka olibad maanta dhan aad raadin lahayd marka tusaalahan haddii aanu barbar dhigno nabadda isha ay nabaddu ka timaado inay tahay ilaahay oo nabadda waxaa keena ilaahay subxaana wa tacaala haddii aadan markaa ilaahay aadan fahmin marnaba lagama yaabo inaad nabadda usoo dhawaato dhowr qaybood ayayna u qaybsantaa nabaddu dadka qaar baa markaa waxay u maleeyaan haddii wax walba loo fudaydiyo oo ay nolol raaxale ku jiraan inay nabad haystaan laakiin tani waa nabad kumeel gaadh ah mana aha nabaddii xaqiiqda ahayd laakiin nabadda dhabtihi waxaa weeye qofku markuu niyadda iyo qalbiga iyo caqligaba uu ka dareemayo nabad markaa jirkaaga iyo caqligaaga iyo maskaxdaaduba waxay nabad dhab ah oo xaqiiq ah ay ku helayaan marka aad fahanto ilaahay markaa dadka aan weli fahmin ilaahay waxay daba ordayaan daandabangaale aysan weligood gaadhaynin ma aragtay haddii aad u baxdo saxaraha daandabangaalanba daba soconaysaa mar walba waxaad isleedahay waad gaadhaysaa laakiin ma gaadhaysid marka si aad u fahamto ilaahay waxaad u baahan tahay inaad akhrido warqaddii adduunka la soo raaciyey markii la abuurayey markaa tusaalihii markii aad soo qaadanaysay ee aad gaadhiga hoonka ka weyday waxaa laga yaabaa ninkii gaadhiga soo sameeyey warqaddii uu soo raaciyay haddii aad akhrido inaad hesho hoonka sidaasoo kale adduunkan maanta laga la'yahay nabaddii haddii la akhriyo warqadda la soo raaciyey oo ah kitaabka nabadda waa la helayaa waana ku waafaqsanahay maanta in dadka oo dhani ay raadinayaan nabad xataa dowladuhu ay raadinayaan nabad laakiin dhammaantood waxa ay raadinayaan waa nabad yar oo kumeel gaadh ah laakiin nabadda xaqiiqdihi waa qofku inuu nabad ka dareemayo maskaxda iyo caqliga iyo jidhkaba adi markaa war kama hayo haddii aad ka calaacalayso amni darre kale anigan kula hadlayaa maasha allah nabad iyo nololba waan haystaa nabaddaasna waxaan ku helay waxaa weeye islaamka sababtoo ah islaam waxa uu ka yimid ereyga salaam oo ah nabadgelyo sidoo kale waxaa laga soo dhirandhiriyey ereyga carabiga ah ee ah silmi oo laga wado inaad ilaahay isu dhiibto oo aad arrimahaaga dhan ilaahay u dhiibto markaas nabadda dhabtiihi haddaan erey kale kugu sheego waa islaam oo micnaheedu ka dhigan tahay nabad lagu helo arrimahaaga ood ilaahay u dhiibto
marka ilaa ood arrimahaaga dhan ilaahay u dhiibto mooyee nabad dhab ah weligaa ma helaysid waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabay su-aashaadii Really? marka diyaar ma u tahay inaad aqbasho nabadda dhabta ah xaqiiqdii Dr. Zakir aad ayaad u mahadsan tahay su-aashaydii si fiican ayaad iigu caddaysay runtii waxaan qiray oo hadda ii caddaatay islaamku inuu yahay diin ku dhisan cilmi iyo inay wax walba xaqiijiso sidoo kale waxaa ii caddaatay islaamku inuu yahay iskuul laga barto wax walba uu qofku naftiisa uu ku hagaajin lahaa marka maanta laga bilaabo waxaan doonayaa iskuulkaas inaan ku biiro si aan u barto jidka saxda ah ee nolosha To learn the right way of life. walaal ma aaminsan tahay inuu jiro hal ilaah waan aaminsanahay ma aaminsan tahay ciise inuusan ahayn ilaah waan aaminsanahay ma aaminsan tahay inuu yahay rasuul ilaahay soo diray waan aaminsanahay ma aaminsan tahay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu yahay rasuul ilaahay soo diray waan aaminsanahay ma qof baa kugu khasbaya inaad islaamka aqbasho may cidna iguma khasbayso ma xorriyaddaad ku qaadanaysaa islaamka haa xorriyaddiidaan ku qaadanaya cidna kuma cadaadinayso may cidna ima cadaadinayso haye maasha allah af carabi ayaan ku odhanayaa adiguna iga daba dheh And then you can repeat it. Ashhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu Abdul wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and soul of Allah. MashaAllah, you're a Muslim. And I pray waxaan ilaahay ka baryayaa inuu in badan ku sii hanuuniyo iyo adi dartaa inuu dad badan oon muslim ahayn inuu u soo geliyo diinta nabadda xaqiiqda ah waxaan kaloon alla kaaga baryayaa inuu akhriyo adduunba wax wanaagsan ku siiyo this world as well as the akhirah. sidoo kale hadday jiraan dad kale oon muslim ahayn oo mikrofoonada taagan fadlan fursadda ha la siiyo marka hore iyaga To ask a question? Yes, we have one from the brothers. Go ahead.